السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا وعن ونكسن داوديال كسو دواده قضبده وركنه ودور كرون ciidamada Tigreega oo wali ku soo qulqulayo deegaanka Axmaarada iyo midka Anfarta. ciidamada dalka Suudaan ayaa waxa ay sheegeen inay qabteen diyaarad hubsiday oo laga leeyahay dalka Itoobiya. gobolka City wali waxa ka taagan dagaalo halkaasi la isku horfadhiyo. guud ahaanba waxa dalka Itoobiya maanta ka bilowday soonkaasi oo loogu talgalay in lagu badbaadiyo sida la sheegayo dalka. muxuu salka ku hayaa khilaafka ra'iisul Soomaaliya iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. ciidamada TDF ayaa waxa ay sameynayaan gurufkii colaadeed ee ugu dambeeyay kaasi oo ay ku soo qaadayaan deegaanada ay doonayaan inay hantiyaan. ciidamo fara badan ayaa waxa ay ku soo qulqulayaan amaba ay soo galiyaan deegaanka Axmaarada iyaga oo waliba dhanka Anfarta ciidamo aad u tiro badan iyada lafteeda ay u sii qaadeen. wali waxa socdo dagaalka ciidamada federaalka iyo xulafadooda iyo dhanka Tigreega dagaalada ka dhaxeeya labada dhinac. wali waxa si xoogaystay oo si socdo dagaalka la isku horfadhiyo aaga Gondar iyo waliba Dizay oo iyada lafteeda xaaladaydu aysan sahlanayn. ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegayaan in ay qabqabteen ciidamo tiro badan oo dhanka TDF ay ka qabteen iyo waliba saanad military. sidaasi si lamid ah waxa iyagana sheegashadaasi soo sheegtay ciidamada TDF iyaga oo sheegay in ay dhul hor leh ay la wareegeen ayna soo qabqabteen ciidamaha u badan kuwa Axmaarada. sheegashada labada dhinac ayaa waxa aan la hubin karin saxnimada iyo sida ay wax u jiraan maadaama aan la helin warbaahin madax bannaan oo labada dhinacba ka madax bannaan taasi oo sheegi karto war dhexdhexaad ama xaqada ku salaysan. ciidamada dalka Suudaan ayaa waxa ay sheegeen in ay gacanta ay ku dhigeen diyaarad rakaab ah oo hubsiday. diyaaradani oo ka timid amaba ah kuwa shirkadda duulimaadka dalka Itoobiya ayaa sheegaysa in ay ka soo duushay Addis Ababa. wakaalada wararka ee Suudaan ee Sona ayaa sheegtay in hubkani dalka Ruushka uu horay uga iibiyay dalka Itoobiya. wakaalada ayaa ilo u gaar ah oo soo xiganaya ayaa sheegtay in hubkani loo waday amaba loo dusinayay kooxo khalkhal gelinayo amniga dalka Suudaan kuwaasi oo ay doonayeen inay xiisad ay ka abuuraan gudaha dalka Suudaan. dalka Suudaan iyo Itoobiya ayaa waxa ka dhaxeeya muran ku saabsan maran biyoodka Niil iyaga oo labada dhinacba doonayo in jabhado ay ka dhax abuuraan. dowladda Itoobiya ayaa horay waxa ay Suudaan ay ugu eedeyn jirtay in ay taageerto kooxaha Tigreega halkaasina ay ka hubeynayso amaba ay tahay mid colaada sii hurinayso. dalka Suudaan ayaa waxa uu isaga laftiisa uu dowladda Itoobiya mar walba uu ku eedeeyaa in uu doonayo in uu ku sameeyo faragelin gudaha dalka Suudaan isaga oo doonayo in uu ka dhax abuuro jabhada khalkhal gelinayo gudaha dalka Suudaan. maalnimadan maanta waxa dalka Itoobiya guud ahaanba ka bilowday soonkaasi oo loogu talagalay amaba leeyahay waxa lagu badbaadinayaa qarnimada dalka Itoobiya. waxaa bilaabanaya soon allabari ah oo socon doona 5 cisho. golaha ay ku mideysan yihiin diimaha kala duwan ee dalka Itoobiya ayaa maalmo ka hor ilaamiyay si looga gudbo xaaladda adag ee dalka Itoobiya uu ku jiro. kulankan oo la ilaamiyay ayaa waxa fadhiyay culimada muslimiinta iyo Kiristaanka iyo kuwa kale oo dalka Itoobiya ka dhisan. culimadani ayaa waxa ay leeyihiin waxaan doonaynaa in dalka Itoobiya aan badbaadino allana aan u barino. galbeedka City waxa wali ka taagan dagaal iyaga oo wali halkaasi ay ka taagan tahay xiisadii dagaal ee halkaasi ka jirtay. maalnimadii shalay ayaa waxa ka dhacay dagaal goos ah aaga Garbaciise. Anfarta ayaa waxa ay doonayaan in mar kale ee dagaal gaadma ah ay ku soo qaadaan ciidamada Liyuga ee halkaasi ku sugan iyo waliba shacabka halkaasi deganaa waliba waa degmada Candhuufo iyaga oo waliba ku maraamarsiyonayo oo leh dowladda Itoobiya ayaa noo ogolaatay dhulkaasi in inaga aan xukuno.
dagaal gaadma ah ayay waxa ay la damacsanayeen in maalintii shalay ah ay kusoo galaan magaalada Candhuufo iyagoo oo waliba doonayo in ay gacanta ay ku dhigaan ay shacabka halkaasi joogana ay xasuuq ay u geystaan, balse taasi beddelkeedii ciidamada liyuga ayaa waxa ay sameeyeen iska caawintii u dambeysay taasi oo rabaaxa weyn ku noqotay ciidamada Anfarta iyaga oo dib uga cararay halkaasi dhaawacoodana qaadan waayay. dhanka kale waxaa weli sii socdo mudaharaadkii iyo waliba diyaar garowgii ee wadeen dhalinyarada gobolka City iyaga oo waliba ilaa hadda ay jaran tahay wadadii tareenka isku xirisay Itoobiya iyo Djibouti iyaga oo waliba ballan qaaday ilaa iyo inta laga maqlay amarkooda oo ah in gobolkaasi ay faraha ay ka qaadaan Anfar in wadadaasi wax tareen ah uusan mareynin. wadadan tareenka ah ayaa waxa ay tahay marinka muhiimka u ah Itoobiya kaasi oo waliba u keenayay dhaqaalaha ugu badan dalka Itoobiya iyo waliba cunnada ugu badan ee dalkaas soo gasho. haddii wadadaasi ay 3 maalin ay go'naatana sixir barar aad u weyn laga dareemi doono guud ahaan dalka Itoobiya. khilaafka u dhaxeeya wasaaraha Soomaaliya iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa laga soo deyrinayaa in xaalkiisa aad waxa soo shacbaxay khilaaf u dhaxeeya wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Soomaaliya. wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo sidoo kalena mar soo noqday madaxweynaha Puntland ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed iyo xiisadda ka dhalatay kiiska Ikraan Tahliil Faarax. Gaas ayaa ugu horeyn taageeray soona dhaweeyay go'aanka wasaare Roble uu shaqada ugu joojiyay agaasimihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Fahad Yaasiin. sidoo kale waxa uu tilmaamay in sababta loo soo dedejiyay shaqo joojinta ay tahay jawaabta dhabta ah ee lagu waayay agaasim dhabta ah. sidoo kale waxa uu tilmaamay sababta soo dejisay shaqo joojinta inay tahay jawaabta dhabta ah ee laga waayay agaasimaha nabad sugidda iyo sida uu hadalka u dhigay. siyaasiga caanka ah Cabdiweli Cali Gaas ayaa waxa uu hadalkiisa soo sii wata uu shaac u ka qaaday in go'aankani uu sidoo kale uu yahay mid ugu fudud ama wadada ugu fudud ee uu qaadi lahaa wasaaraha Soomaaliya maadaama xal laga waayay Fahad Yaasiin. xiisadda ka dhalatay Ikraan Tahliil ayaa waxa ay yeelatay wajiyo cusub iyada oo madaxweynaha Soomaaliya iyo wasaaraha uu soo kala dhaxgalay khilaaf. habeennimadii xalay ayay ahayd markii wasaaraha Soomaaliya uu xilka uu ka qaaday agaasimaha hay'adda NISA Fahad Yaasiin iyada oo waraaqda uu soo saaray uu ku sheegay in shaqo joojin uu ku sameeyay waliba uu amray maxkamadaha in baaritaan degdeg ah ay ku sameeyaan kiiska Ikraan Tahliil. waxaa sidoo kale uu ku simo u magacaabay goobe oo uu yiri xilkaasi inuu sii qabto, balse saacado kadib ayaa waxa iyadana warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha taasi oo waliba lagu amray Fahad Yaasiin in uu sii wato shaqadiisa ayna saameyn doonin shaqo joojintii uu ku sameeyay wasaaraha. taasi beddelkeedii waxaa dhashay khilaaf mucaaradka iyo muxaafadka hawada la isku marinayo. daawadayaal waxaa intaasi inoogu dhan warbixii daliya dibadda naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. intaan warkan mid ka kulmeen haddii ay baydno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.